Magaalo ka mid ah magaalooyinka lagu jecel yahay Soomaalida, waxay hoy u tahay dad kala duwan oo ka yimid guud ahaan gobollada Soomaalida ay degto iyo weliba daafaha caalamka. Sanadihii ugu dambeeyay waxay deegaan u ahayd dad u badan arday oo wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Boorama. Boorama sanadihii ugu dambeeyay waxay sameynaysay horumar dhan waliba, sida ganacsiga amaba qaybaha kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha. Mid ka mid ah baahiyaha ugu badan ee bulshada Boorama ay qabaan ayaa ah wadooyinka. Waxay ku beegneyd dhammaadkii sanadkii tagay ee 2019 markii dowladda hoose ee degmada Boorama ay wax ka beddel ku samaysay habka isku socodka gawaadhida iyo dadweynaha, iyadoo ka duuleysa ciriiriga faraha badan ee sanadihii ugu dambeeyay kusoo badanayay wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Boorama, oo ay sabab u tahay wadooyinka oo aad u yar iyo weliba gawaadhida oo aad u soo badanayay. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama oo ra'yigooda ku aadan isbeddelka wadooyinka aan wax ka weydiinay, waxayna yidhaahdeen. Sidee u aragtaa isbeddelkii dowladda ku samaysay wadooyinka kala duwan ee magaalada Boorama? aad iyo aad wanaagsan wallahi inay fiirso isbedel ballaaran oo aad u weyn aad u farxsan. Isbeddelkan maxaa faa'iido ugu jira dadweynaha kala duwan ee magaalada Boorama? Maxaa khasaare ugu jira? Horta khasaaro oo badan ku jiro ma jiro, marka waxaa ku jira faa'iido aad u badan oo qabnay waxa ka dhigay shaqada ka dhigay waxaan ka dhigay marka dowladda habaysi waxa laga yaabaa in dhacay inuu yaraado oo xaddiyo wuxuu si caadi in bajaaj loo sameeyo iyo si shaqada dhacay Cabdishakuur Maxmed Cali, Xaaladun TV, Boorama.